horta waxaan la hadlay madaxda doorashada ku xilka leh anagoo urur horta anigu waxaan hay in dhalinyaro maamooyinkii hore ee diga horeeyaan ku dayan la aqoon baan leeyahay waxbaan bartay waxba la soo baray intaas dadaal la soo galay juhdi baa la soo galay maamooyinkii iga horeeyaan ku dayan lahaa waa kuwa wada cabanaya qaylinaya maxaan anigu horta haday madaxdu tahay iga mas'uuliyad yihiin anigu haween baan nahay mas'uuliyadda iga saaranay ilaa wax intaas oo dhan wax soo baranayay soo inaan ayaga ku dabadaydo jiilkii iga horeeyay aqoon igu kordhiyaan maaha oo igarab qabtaan intiiba kama hayo waay ayagii baa qaylinaya maalin kasta waxaan raacaa urur haween oo dhalinyaro oo aan dhalinyarnimo u matalasaan aqoon iyo uga faa'iideysto maalin kasta qaylatay rag baana boobay waxa boobayana waa raggii anagu aan maanta garabka ka heli lahayn ee hadaan dhalinyaranahay iyo hadaan haween banahay marka waxaan ka codsanayaa horta madaxda in hoos dumarka u eegaan anagoo dumarkii ah marka waxaan oran lahaa in horta xisbi anigu maanta waxaan hay inaan biri waxaan rabaa inaan noqdo musharax kursigaan ku sharaxmi lahaa aan ugu tirtami lahaa aan juhdiga intaas maamadaydu juhdiga u gelin lahaa shalay waxaan maqlay nin baa loo xidhay suurtagalna maaha anigu ma diidan in la tartamo laakiin waxa khalad ah anoo maanta tartan u soo diyaar garow waqti ku soo bixiyo juhdi ku soo bixiyo in la dhaho kursigaygii qof baa loo xidhay macquul la taasanayn maxaa horta marka hore aan maamo waalidka aan nahay aad wax noo soo baraysan noo soo qoon baraysan noo soo kicinaysan ma inaad iska fadhino guriga oo aan ka soo bixin oo aanan wax isdifaac aan wadanka u qaban mise waxa soo dhan aad nagu akhridaan markaan meesha joogna ama wax baranayna u tiraadan sidan baa doonaysan heer sare noqotay nimada ka sareysan baa rabna sababtu maxay tahay sababtay baaban aan garan laanahayba markaan meel joogno ama meel aqoon aan joogno waxa la oranayaa arday baatiin sidan baatiin soo baxa marka aan dadkii maamooyinkii naga horeeyaan aragnana ayagoo cabanayo wada ooyayo inta ku taagantay baan madaxda waxaan u leenahay in maamooyinka hoos oo eegtan waliba kursiga aan anigu maanta aan tartamay 105 aan silay biri u tartamay maama u tartamaysa maamadayda oo kala waxaan ku biri maanta baa loo soo yiri waxa la yiri kursigaaga nin baa loo xidhay macquul miyaa waxaasi waxaan oranahay hoos noo fiiriyo hadaan nahay haweenkii hoos noo fiiriyo na eega hadaa kala waxa tiraahdan waxba marka hore baa tartamina